hawlgalkani ayaa ahaa mid ay saaka mas'uuliyiinta dawladda hoose gaar ahaan waaxda arrimaha bulshada ay ku soo ururinayeen alaabooyin dhacay ee yaala gudaha magaalada Laascanood iyo sidoo kale goobaha ganacsiga sida bakhaarada dukaamada iyo goobaha caafimaadka ee farmasiyada mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Laascanood ayaa sheegay inay maanta bilaabeen hawlgalkan isla markaasina uu socon doono markii hawlgalkani saaka soo dhameeyeen mas'uuliyiintu waxay ku soo bandhigeen xarunta dawladda hoose ee degmada Laascanood ay goobjoog ahayeen duqa degmada Laascanood xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Laascanood iyo mas'uuliyiinta waaxda arrimaha bulshada iyo saraakiisha booliska oo qayb ka ahaa hawlgalkani saaka wareen baa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waaxda arrimaha bulshada iyo sidoo kale xildhibaan Caawil Ismaaciil Faarax oo kamid ah mas'uuliyiinta waaxdaasi waxaan bilownay hawlgal aad u balaaran oo wali dawladda hoose aan maanta ka hor aan looga baran waxaan galnay magaalo farmasiyadii waxaan galnay bakhaaradii wixii dhacay waad aragtaan oo indhihiina ay macallina amarkaas oo aan fulinay hadaan nahay waaxdi fiyo dhowrka aan soo qabanay intaas oo daawaa oo ah waxyaalihii deeliga ahaa waxaanu galnay bakhaaro waxaanu galnay farmasiyaal waxa laga yaabaa inay dadku ay iska isticmaalaan xanuunada jirana waxyaalaha laga qaadayo waxa ka mid ah daawada dhacday raashinka dhacay iyo wixii la mid ah dhankiisa xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Laascanood oo isna goobjoog ahaa ayaa sheegay in hawlgalkan ay wadayaan isla markaasina ay sanad walba soo noqon doonto dhexmaridda iyo sidoo kale soo saarista alaabooyinka dhacay ee suuqyada magaalada Laascanood lagu gadayo waxa maanta la galay oo kormeer lagu galay suuqa magaalada Laascanood suuq weynaheeda haday tahay bakhaar iyo farmashiba goob caafimaad iyo goobta lagu iibiyo cuntooyinka iyo bagaashkaba waxa laga soo helay dawooyin iyo raashin kala duwan oo dhacay oo indhihiina aad ku aragtaan oo kuwaasa waa bishii labadii bilood ugu dambeeyay ku jirnaa ee sanadkii 2019 waajib ay u leedahay waaxda arrimaha bulshadu in ay ka hawlgasho maanta arinta fayadhowrka ee maanta halkan ay ku soo bandhigeen bilow weeye shaqadu maanta orolihii maanta la bilaabay laakiin ma aha mid maanta ku eg biri ku eg saadambe ku eg bil laba bilood haray asbuuc laba asbuuc saddex asbuuc intii ay nagu qaadato waan wadaynaa waan ku jireynaa suuqa waxaan ugu bushaareynaa dadweynaha reer Laascanood oo aan leenahay haddii hore aanay u jirin in leedika kantaroolo bakhaarada raashinka yaala iyo farmashiyada daawooyinka yaala maanta indhihiina waxaad ku aragtaan in laga soo guray oo la soo hoofay banaanka ay wadayaaliin dadka ganacsatada oo ugu horeeya waa culimadii waxaan ilaahay ka yaaba oo bulshada aad ka dhex ganacsanaysaan waxa aad kaga ganacsanaysaan hoos u eega duqa degmada Laascanood oo soo gabagabeeyay hadalka ayaa uga digay ganacsatada magaalada Laascanood inay bulshada ka iibiyaan alaabooyinka dhacay isla markaasina ay iska saaraan baabuurta ay dawladda hoose ugu tala gashay saad aragtaan ama warbaahintaad kala socon doonto alaabooyin kala duwan oo saaka hawlgal ay qaaday waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose iyo waaxda golaha u qaabilsanba hawlgal balaaran ay qaadeen in alaabta lagu soo qabqabtay waxaad halka ku aragtaan waa sharaab waa dawooyin kullay deemeherada laga soo qaaday dadka waxa u yaqaanaan gacan ku dhiiglaha kullay qofka qof dila kullay qofka waxa dhacay dadkii iibinaya ku dhimanayaan kullay gacan ku dhiiglu soo galayaan sida dadka baabuurta aan aqoon kaxeeya laftiisu waxa la yiraahdaa gacan ku dhiiglaha soo galayo kullay waxa leeyahay dadkiina u naxa bakhaarada maanta laga soo saaray iyo farmasiyada iyo dhulka waa meesha dadka labeenta magaaladii ay haystaan kullay cid walba waxaan ka soo saari doonaa liis dadku ku qoran yihiin dadka waxa dhacay iibiya oo meel walba caalamka laga daawan doono lagana akhrisan doono liiskooda waxaan leenahay nin walba liiska waxaad maqlitay Mareykanka balaag liis dad ku dareen balaag liiskaas ka ilaali baan ku leenahay oo dadkaaga iyo deegaankaaga iyo ummadaada u nax waaxda arrimaha bulshada dawladda hoosana abaalmarin weyn baan guddoonsiinaynaa haddii la jaa'isada kale oo mahadnaqaynaa intaas oo hawlgalan soo sheegnay ee bajaaj ee nabadgelyada haday tahay khamriga haday tahay alaabta la soo qabtay haday tahay bajaajta
inta waxaan u mahad haday tahay ciyaarihii inoo dhamaaday inta waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay ka sukow ciidanka amniga oo gacanta ugu weyn ka lahaa ciidankana way mutaysay way abaalmarintana yana taliyaha qaybta ciidankana abaalmarintooda waa sii doonaa maxamuud aadan askar maxamuud guray saab TV magaalada Laascaanood